السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى السلام walaaleyga Soomaaliyeed meel walba aad joogtiin soo dhawaada. Maanta meeshaan waxaan noo wadaa quraac yar oo fudud oo ah quraacda weekendiga iyo maalmaha kaleba. Meeshaan ku sameynayaa alaab la magac baxday magaceeda la yiraahdo cajab oo canjeerada lagu cuno ama waxyaalaha kale rootiga wala waxa aad jeceshahay. Marka waa tanaa saliida oliifta iyo waxay ka sameysan tahay yaanyo iyo kaabash koosto iyo ukun intaa waa aydan way kooban tahay. Ma aha wax hilib iyo lagu daray oo culus. Quraac yar oo fudud laga rabaa. Quraacda haddii hilib lagu bilaabo ma shaqeynayso qado meesha ma soo geli karto sida aniga ila tahay. Waa quraac yar oo fudud aan miisaan ku kordhinaynin. Dadka miisaanka ilaaliyo rab inuu miisaankiisa joogo waxa waaye cunto u fiican waaye cuntooyinkaas aan keeni doonaa hadii alla idmo insha Allah. Marka alaabta waan isku darayaa canjeerada lagu cunaayana canjeeradeena caadiga ahayd ma aha oo burka u badneeday ama cusleeday. Waa canjeero laga sameeyay burka buroonka ah iyo galey la isla ekaysiiyay cusbo iyo biyo lagu qasay bis caano iyo ukun iyo shaqo ku lahayn. marka saas ay qafiif u tahay magacaas u qodataa oo canjeero qafiif magaceeda alaabtan lagu cunaayna cajab waa wax yar oo fudud oo la rabo inay qadada boos hesho basaan ugu talagalay marka alaabahaas fudud oo magacyadoodana wato insha Allah noo soo badin doonaa hadii alla idmo sidaas ay ila soconaysiin hadii mala waxa ama suqaar wato ama canjeerada burka cadeed lagu quraacdo waxaan ila taa meesha inay sii soconaynin oo qado waqtigeeda jirinba meel ay gasho hadii la qadiyana ay tahay qado la isku qasbay marka alaab fudud ayda dhan waxa la naftaada iyo naftaada jecesha u sameey qof walba sameyn karo laanta waa caadi oo noo fududaad marka daanaha ragga laftirkooda way sameyn karaan waa inay ayagana bartaan alaabahan fudud ay sameeyaan ayaga ma ahan in la saarnaado loo sameeyado waa iyagana ay sameeyaan waxaan u iri waa saas naftaada iyo naftaada jeceshahay day noqon lahayd waalidka odaga hadhiin islaanta kulli ilmaha wixii oo dhan waa familki wax la necb yahay malaha wax qof walba waxay u baahan tahay wax quruxsan oo dhadhan leh marka ayaga laftooda inay ku baraarugaan ragga meel walba waxa qabsatay odaga u sameey marka odaga islaanta iyo kulli waa wax walbaba waxaan diidanahay dadka hal meel uga dhigto oo wixii hagaagsan ba ay u malaan inuu odaga bas leeyahay qof walba oo naf leh kugu weyn adiga way kugu leedahay wax quruxsan oo dhadhan leh insha Allah saas loo fahmo ragga laftooda dhagaha u furaano ma aha in ayaga bas ay u fadhiyaan maxayada waa saxanka odaga saxanka islaanta ka war hayaan ayagana insha Allah marka faa'iideyso wacan hadda ka sameysho sida aadna u karaysaa la socodii sida isugu dardaraa waa aragtiin ayadoo qoraal hadda meesha saaran tahay marka insha Allah alaabo yar yar oo fudud oo magacahoodana wataano mar hore u soo wanqalayno ila wadaagi doonaa insha Allah qof walbana uu sameyn karo rag iyo dumarba fartaxba ukunta aydan ku gadiyo waxa lagu daraayo waxa waaye intaas iyo cusbada iyo toonta bas xawaajiye kale iyo looma baahna waa wax subax la cunaayo inta ka badan ma loo baahna insha Allah waa kaas yar isku soo huraysa ka dambana waa diyaarba marka inta cuna nuqada u baahan yahay uu dareemi karaa aad laakiin alaab culus lagu soo quraacdo markaas waxay ku fiican tahay qofkaas inuu qadada u gooyo san qadaynin dadka raba inay miisaankooda joogaan
laakiin qofka raba inuu sii socdo waxa waaye waa inuu isku qasbaa cuntada marka ayadoo diyaar qof walba intaa iyo kasii yarbu quraac way ugu filan tahay insha allah sidaas ay la soconaysiin subscribe iyo share like wax walba waa dhankiina. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.